Across the globe, journalists confront mounting challenges as they strive to fulfill their duties. UNESCO reports a sobering number of 759 attacks on journalists, including 5 fatalities from January 2019 to June 2022. On the 2nd of November, the world unites to commemorate the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. In Mogadishu, Somalia, the National Union of Somali Journalists, NUSOJ, organized an event with the support of the African Union Transition Mission in Somalia, bearing the name Demanding Justice for Journalists, a stand against impunity. This event highlighted the significance of press freedom and accountability as pillars of good governance. Somalia's Chief Justice, Honorable Bashir Yusuf Ahmed, highlighted the crucial role media has on good governance. waxaan aaminsanahay haddii aan la helin warbaahin xor ah oo madax bannaan oo xaqeeda la dhowro oo laga dhowro dembiyada iyo gabonfallada ka dhanka ah ee access loo siiyo loo ogolaaday helitaanka xogta in meeshaasi aanay dowladnimo dhaba ka dhismi karin inaanu imaan karin isla xisaabtan inaan la gaari karin heerka iyo horumarka la higsanayo ee ummadaas rabto inay dunida kale kula tartanto. In Somalia, 62 journalists were killed on duty between 2010 and 2023, with an additional 67 journalists sustaining injuries between 2010 and 2013. In attendance were media house directors and fellow journalists. Omar Farouk, the Secretary General of NUSOJ, voiced his concerns about the rising number of crimes against journalists. waxaan dalbanaynaa in la joojiyo qarinta iyo dahkarogis la'aanta dilalka qorshaysan ee wariyaasha loo geystay. This event called for an effective implementation of the National Plan for Journalists, Safety in Somalia and international collaboration to combat impunity. maanta annaga oo xusayna maalintan waxaan rabnaa inaan ku baaqno in baarid dhab ah oo degdeg ah lagu sameeyo dilalka iyo dambiyada laga galo suxufiyiinta ee aan la ciqaabin ee dalkeena ka dhanka. Suppressing the freedom of expression has no place on the path to good governance. Protecting journalists is fundamental to this collective vision. saasi darteed waxaan aaminsanahay maalintani inay tahay maalin qiimaheeda leh oo mar walba ay mudan tahay in laga shaqeeyo badbaadada iyo badqabka wariyaha Soomaaliya iyadoo ay waajib tahay wariyuhu meesha doonaha joogee in laga maarmaan ay tahay badqabkiisa in laga shaqeeyo cidda gaboodfalka ka gashay dambiga ka gashana in dambigaasi loo ciqaabo qofna aanu ku talagelin inuu wariye dilo dhaawaco dhibaateeyo xarun warbaahineed weeraro dhibaato u geysto isagoo aaminsan inaan la xiri doonin inaan dacwad lagu oogi doonin ama inaan la ciqaabi doonin. waxaan rajeynayaa saxafiyiinta Soomaaliyeed dadka dambiyada u geystay in la xisaabtamo waxa maanta farxad gaar ah tahay in maanta nagala soo qayb galay gudoomiyaha maxkamadda sare oo qaaday fariinteena ku aadan inaan mar walba dhibana u nahay dad dambiyada ay geysteen aan nagula xisaabtamin. marka waxaan rajeynaa shirkan inay ka soo bixi doonaan waxyaabo soo afjari doono in la xisaabtamo kuwa mar walba caadiyay saxafiyiinta dhibaatadooda. ani ahaan maalin weyn ay iga dhigan tahay maadaama waxa ahaa qof saxaafadda bartay oo kuliyadda saxaafadda 5 sano jaamacadda ummadda Soomaaliyeed u fadhiyay haddana ah wariye ka shaqeeya warbaahinta qaranka teeda kalena ka shaqeeya Soomaaliya oo ay xaaladeeda badanaa halis ku jiraan wariyaasha. The commemoration of the day is a testament to the unwavering commitment of the African Union and ATMIS to secure peace and stability in Somalia. This commitment seamlessly aligns with Silencing the Guns, a prominent initiative under the AU's Agenda 2063.
This plan is designed to guide Africa towards inclusive and sustainable socio-economic development over a 50-year span.